Bal qiyaas inaad indhaha kala qaadid sanadka 2055, waxaad ka baxaysaa gurigaaga, laakiin ma qaadanaysid furayaal, albaabkuna wuxuu kugu aqoonsanayaa wejigaaga amba codkaaga. Markaad bannaanka u baxdo, gaari iskiis isku wada ayaa ku sugaya. Ma jirto darawal, mana jirto cid kuu sheegaysa waddada. Sirdoonka macmalka AI-ga ayaa horay u qorsheeyay waddada ugu dhaqsiyaha badan, isagoo ka fogaanaya saxmadda gaadiidka. Waxaa fiirinaysaa waddooyinka, nalalka taraafikaduna ma shaqaynayaan waqti go'an sida kuwa maanta. Waxay isbedelayaan iyadoo lagu saleynayo tirada baabuurta iyo dadka maraya. Haddii uu ambalaas soo socdana, AI-ga ayaa isla markiiba furaya waddooyin bannaan. Markaas su'aasha waxay tahay, tani ma mustaqbalka dhowba mise waa un mala-awaal? Runta waxay tahay qaybo badan oo ka mid ah arrimahan inay maanta dunida ka jiraan. Magaalooyin kala duwan ayaa durba isticmaala nalal taraafik oo caqli badan, dareemayaal cabbira hawada, iyo nidaamyo AI ah oo ka caawiya maamulka gaadiidka. Tiknoolajiyaddan ma aha mid biri bilaabmaysa, balse waa mid mar hore soo bilaabatay oo hor u kaceedana maalin walba la dareemayo. Laakiin sanadadan soo socda ayay si weyn u ballaaran kartaa. Haddaba Smart City-ga muxuu yahay? Smart City-ga waa magaalooyin adeegsada tiknoolajiyad casri ah, AI-ga, internetka, dareemayaal amba sensorka, kamarado, amba xog ururin si adeegga magaalooyinka loogu dhigo kuwo degdeg badan, amni badan oo waxtar leh. Ujeedaduna ma aha tiknoolajiyad kaliya oo la isticmaalo. Ujeedaduna waxa weeye in dadka lagu siiyo nolol wanaagsan. Calaamadaha muujinaya inaan mustaqbalka eegno maanta waxaa jira diyaaradaha aan duuliyaasha lahayn droneska ayaa meelaha qaar gaarsiiya dawooyin iyo qalab caafimaad. AI-ga ayaa isbitaalada ka caawiya falanqaynta sawirrada caafimaadka, taageeridda go'aamada dhakhtarada. Magaalooyin badan waxay adeegsadaan dareemayaal cabbira heerka wasakhowga hawada. Dhammaan kuwani waa calaamado muujinaya magaalooyinka caqliga badan isticmaala inaysan ahayn oo keliya fikrad fog. Sidee ayay magaalooyinka isku beddeli karaan? Waxaa suurtagal ah in 10 sano gudahooda gaadiidka badankiisa uu noqdo mid asaga iswado. AI-ga ayaa laga yaabaa inay isku dubariddo dhammaan nalalka taraafikada si saxmaddu ay u yaraato. Qashin qubka magaalooyinkana wuxuu diri karaa fariimo markii uu buuxsamo, taas oo yareyn karta kharashaadka iyo wasakhowga. Dareemayaal ayaa ogaan kara dhuumaha biyaha ka hor dillaaca intaysan dhibaato weyn dhalinin. Waxaa kaloo suurtagal ah in magaalooyinka loo sameeyo nuqul dijitaal ah, digital twins, taas oo suurto gelinaysa in maamulka ay tijaabiyaan qorshe cusub oo kombiyuutar ah ka hor intaan si dhab ah loo fulinin. Fikrado aad u yaab badan oo hadda aan ka hadlayno, fikrado aan weli noqonin xaqiiqo, laakiin laga shaqeynayo. Waxaa laga yaabaa inaan aragno tagaasi duulaya oo ka shaqeynaya waddooyin hawada ah. Robotyo ayaa laga yaabaa inay qabtaan shaqooyin badan oo nadaafadda ah, dayactirka, iyo badbaadinta. Waxaa laga yaabaa in guryuhu ay si buuxda ku fahmaan ayagoo hagaajinaya heerkulka, iftiinka, amniga, iyagoo aadan wax amar bixinin. Waxaa muhiim ah in la ogaado inay fikradahan yihiin saadaal iyo cilmi baaris socota, mana jirto qof hubaal u sheegi kara goorta amba haddii ay dhammaantood noqon doonaan qayb ka mid ah nolosheena maalinlaha ah. Caqabadaha tiknoolajiyadda xooggan waxay la timaadaa mas'uuliyad weyn. Su'aal badan ayaa ka dhalan kara sugnaanta bini'aadamka, maadaama nidaamyadu ay ururin karaan weerarada internetka waxay khatar gelin karaan adeegyada muhiimka ah haddii aan si fiican loo ilaalinin. Shaqooyin qaar way isbedeli doonaan, taasoo ka dhigaysa in dad badan ay u baahan doonaan xirfado cusub. Haddii magaalooyinka ay noqdaan kuwo caqli badan, dhaqaaluhuna wuu isbedeli karaa. Maanta dad badan waxay gacmahooda ku qabtaan shaqooyin badan, laakiin mustaqbalka AI-ga iyo robotyo waxay qaban karaan shaqooyin soo noqnoqda. Tani waxay shirkadaha u yareyn kartaa kharashaadka, waxayna u kordhin kartaa wax soo saarkooda. Laakiin dhinaca kale waxay dhalin kartaa su'aalooyin muhiim ah. Maxaa ku dhici kara dadka shaqooyinkooda ay mashiinada qabtaan? Dadweynaha iyo dowladaba waxay u baahnaan doonaan inay dadka baraan xirfado cusub oo la jaan qaadi kara tiknoolajiyaddan cusub.
Waxaa laga yaabaa shaqooyinka ugu badan ee mustaqbalka inay noqdaan kuwo la xiriira AI-ga, robotyada, cybersecurity-ka iyo falanqaynta xogta. Smart City iyo deegaanka. Mid ka mid ah yoolalka ugu waaweyn ee Smart City waa ilaalinta deegaanka. Maanta magaalooyin badan waxay la tacaalaan wasakhowga hawada, qashinka iyo isticmaalka tamarta. Mustaqbalka AI-ga waxay si toos ah ula socon kartaa heerka wasakhowga hawada. Haddii hawadu noqoto mid khatar ah, maamulka magaalada ayaa heli kara fariin degdeg ah. Qashin qubka magaalooyinka wuxuu si iskiis u sheegi karaa markii uu buuxsamo, taas oo yareyn karta qashinka magaalooyinka iyo wadooyinka. Waxaa kaloo suurtagal ah in waraabinta jardiinooyinka lagu saleeyo xogta cilmiga si aan biyo loo khasaarinin. Smart City iyo caafimaadka. Bal qiyaas haddii uu wadnaha istaago qof wadada marayo. Mustaqbalka, kamaradaha amniga iyo dareemayaal kale ayaa laga yaabaa inay ogaadaan xaaladahaasi ilbiriqsiyo gudahooda. AI-ga waxay si toos ah u ogeysiin karaan ambalaasyada, waxayna dooran kartaa wadada ugu dhow ee lagu gaari karo bukaanka. Waxaa kaloo suurtagal ah inay isbitaalada isticmaalaan AI si ay uga caawiyaan ogaanshaha cudurka xilli hore. Waxbarashadu way isbedeli kartaa, ardayduna waxay heli karaan casharro kooban oo heer kasta leh. AI-da waxay sharxi karaan casharrada si kala duwan ilaa ardaydu ay fahmaan. Fasallada waxaa laga yaabaa inay isticmaalaan xaqiiqo muuqaal ah virtual reality, taasoo ardayga siin karta khibrad ka dhex arkaan taariikhda, cilmiga, meerayaasha qorraxda ayagoo aan fasalka ka bixin. Laakiin macallimiinta bani'aadamka ahi waxay sii ahaan doonaan muhiim, sababtoo ah waxay bixiyaan hagitaanka, dhiirigelinta, fahamka dareenka ardayda. Smart City iyo tamarta. Waxaa laga yaabaa guryo badan inay yeeshaan saqaf qoraxda ka dhaliya tamarta. Haddii aad intaan nala soo gaarteen aad ayaad u mahadsantihiin. Haddii uuna channelka subscribe ku ahayn, subscribe saar, like iyo share noo dhankiina. Sidaas iyo nabadgelyo, sharaf iyo karaamo.